الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. waxaynu ku soo jiray kitaabkii Hisnul Muslim ku soo jiray xadiiska 103 wuxuu oranayaa markuu seexanayo Allahumma innaka khalaqta nafsi Allahumma ilaahayow innaka adigu khalaqta nafsi waad abuurtay naftayda wa anta tawaffaha adiga oofsanaya laka mamaatuha wa mahyaha adoo quru ku sugnaaday mamaatuha geerideedu hadday dhimato aduu ku sugnaado adiga ayaa markaa haya adigaana markaa abaal marinaya adaana xisaabaya wa maxyaaha nolosheeduna adiga ay ku sugnaatay nolosheeduna adiga ayay ku sugnaatay in axyaytaha haddii aad noolayso faxfadha ilaahayow ilaali marka laka mamaatuha waxa soo gelaysa laka mamaatuha wa maxyaaha adaa awood u leh inuu dilo iyo inuu nooleeyo mid walba waayo ka wax dilaya wax noolaynaya waa adiga un marka laka mamaatuha aduu ku sugnaaday geerideedu hadday dhimato cidda dilaysaa waa adiga wa maxyaaha nolosheeduna aduu ku sugnaado adun baa noolaynaya cid kaloo noolayn kartaa ma jirto in axyaytaha faxfadha ilaahu haddaad noolayso faxfadha ilaali wa in amattaha haddii aad dishana faghfir laha u dembi dhaaf allaahumma ilaahayow innii anigu as'aluka alcaafiya waxaan ku weydiisanayaa caafiyaan ku weydiisanayaa aafaadka iyo masaa'ibka aad iga ilaaliso oo aad iga daafacdo hadday tahay musiibo xagga diinta igaga dhacda hadday tahay mid markaa xagga adduunyada ama ehelka ama nafta ama maalka ama wax la midka igaga dhacda kullu daalika ilaahu caafiya isii macnuu saasuu dhacaya xadiisku waa min xadiisi cabdullaahi bni cumar imaam muslim iyo imaam axmed ayaa soo wariyey marka waa baryo ilaahay la baryaayo ilaahayna ficiladiisii baa lagu tawasulayaa biafcaali illaah allaahumma innaka khalaqta nafsii wa anta tawaffaaha laka mamaatuha wa maxyaaha waxay noqonaysaa min qabiili tawasul xadiiska 104 marka uu ruuxu seexanayo wuxuu odhanayaa allaahumma ilaahayow qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadak qinii iga dhowro iga ilaali cadaabaka cadaabtaada ilaahu iga ilaali ilaahu cadaabtaada iga dhowr oo iga ilaali yowma tabcasu cibaadak maalintaad addoommadaada soo saarayso cadaabkaagu inuu haleelo lay cadaabo ilaahu iga dhowr oo iga ilaali kaana sala allahu alayh wasalam idaa araada an yarquda wadaca yadahu alyumna taxta khaddih nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray markuu doonaayo inuu seexdo wadaca mid dhiga yadahu alyumna gacantiisa midig wuxuu dhigi jiray taxta khaddihi dhabankiisa hoostiisa ayuu dhigi jiray uma yaquulu markaasuu wuxuu odhan jiray allaahumma qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadak yacni ducadaasuu ilaahay ka beri jiray 3 maraat 3 goor buu sidaa odhan jiray oo ku celin jiray xadiisku waa min xadiisi xafsa binti cumar ummi almu'miniin waxaana soo wariyey abu daawuud waghayruhu baa soo wariyey xadiiskan waxaa jira saxaabo kale oo iyaguna soo wariyey baa jira oo dhowr saxaabi baa xadiiskan laga hayaa oo baabka waxaa ku sugan oo xadiiskan oo kale soo wariyey bara ibnu caazib baa laga soo wariyey oo imaam axmed iyo tirmidi iyo nasaa'i soo wariyeen xudayfat ibnulyamaan baa laga soo wariyey oo imaam axmed iyo tirmidi soo wariyeen cabdullaahi ibnu mascuud baa laga soo wariyey oo imaam axmed iyo ibnu maajah soo wariyeen wakada xadiisu anas iyo xadiisu caaisha iyagana waa laga soo wariyey laakiin dhammaan saxaabadaa kale kuma darin 3 maraat 3 goor inuu sidaa odhan jiray kuma darin inta kalunbay sheegeen inta kale ayuunbay sheegeen axaadiistaa kalena waxa weeye qaarkood waa axaadiis saxiixa oo daatadooda saxiixu ah yacni weeye sida xadiiska marka waxa baraa waa xadiis saxiixa weeye culamo badanna ay saxiixiyeen wakada xadiisu xudayfa isaguna waa xadiis saxiixa weeye wakada xadiiska cabdullahi ibn mascuud isaguna waa xadiis saxiixa weeye calaa kulli xaal xadiiskan hadda xafsa ee sheikhu inoo qoray 3 maraat sheegaya sanadkiisu xoogaa waxaa ku jira caasim ibnu bahdala oo ka warinaya nin sawa la yidhaahdo sawaana uu ka warinaayo xafse uu ka warinayo caasim ibnu bahdala waa caasim ibnu abi najuud alqaari'u almacruuf weeye marka qiraa'ada wuxuu ku yahay qur'aanka imaam ayuu ku yahay
laakiin xadiiska qawi kuma aha xogaa xifdigiisa waxbaa ku yara sugan ha yeeshee dacfigiisu ma darna waa khafiifu dabdi saas aawoodee culammadu waxay dhahen waa xasanulxadiis xadiiskiisu waa xasan haddaanu markaa mukhaalafo samayn oo aanu cid khilaafin xadiiskiisa waa la taxsiininayaa waa xasanulxadiis yani waa saalix lilixtijaaj laakiin darajatu sixa ma gaadhsiisna wuxuu ka warinayaa sawa nin la yidhaahdo sawa'na ibnu xajarku wuxuu odhanaya waa maqbuul marka ashaykhu alalbani silsilatu axaadiisi saxiixa wuxuu odhanayaa 3 maraadkaa waxaan ka baqayaa inaynay sugnayn yani nafta waxbaa kaga jira waayo waxaa la gaar noqday sawa ninka la yidhaahdo ayaa la keli noqday ninkaasna xaafid ibnu xajar wuxuu ka odhanayaa maqbuul waa maqbuulun xaysu yutaabac wailaa falayin alxadiis markaa sidaas aawadeed yani ziyaadadaa shakaa ku jira 3 goor inuu odhan jiray axaadiista kale oo dhanna kuma sugna marka hal mar in la odhanayo ayaa markaa daahir ah wallahu aclam waa baryo ilaahay la baryo allahuma qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadak marka uu jiifsado inuu gacanta midig dhigayo dhabanka siduu u dhigayaa yacni kafkiisa ayuu dhabanka saarayaa dhabankii wuxuu dul saarayaa kafkiis dabeedna saasuu ku seexanaya riwaayaadka qaarkood oo taa caddaynaysaa soo aroortay oo tilmaamaysa wadaca khaddahu calaa kafih inuu kafkiisa saarayo kafkana waxaa la yidhahdaa intaa jalaqsatayda ka horraysa ayaa markaa la yidhahdaa marka riwaayaadka qaarkooda ku soo aroortay waa barkanaya waa jirtaa laakiin dee bacdu riwaayaat oo caddaynayaa jira inuu markaa waxaway dhabanka saarayo baabacadii saarayo xadiiska 105 bismika allaahumma amuutu axyaa markuu waxa weeye jiifsado wuxuu odhanayaa bismika allaahumma ilaahayow magacaaga allaahumma yaa allaahu ilaahayow amuutu ayaan ku dhimanayaa wa axyaa ku noolaanaya magacaaga anoo xusaya ayaan dhimanayaa magacaaga adoo xusayana waa noolaanaya saasuu odhanaya markuu hurdadii ka toosana wuxuu odhanaya alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur sida xadiiska markaa ku sugan intaa dambena waa ku daraya marka hurdada lafteeda waxay tahay mowt yar waa geeri yar geeridii baa waxay u qaybsantaa geeri weyn waa geerida ruuxa la xabaalayo waa geerida markay ku dhacdo ruuxa la xabaalayo iyo geeri yar oo hurdada ah ya hurdadii markuu ka tooso muxuu odhanayaa alxamdu lilaahi aladii axyaana mahad waxay u sugnaatay ilaaha na nooleeyey bacdamaa amaatana markuu na dilay dabadeed ilaaha na nooleeyey ayaa mahadi u sugnaatay oo mahad la gaara wa ilayhi nushuur marka hurdadii baa laga soo qaaday inay tahay mowt inay geeri tahay sida tawafi loogu itlaaqo ya wa huwa aladii yatawafaakum billeyl ilaahay waa ka idin oofsanaya habeenka gudihiisa ayaa marka waxa mowtna loogu itlaaqa marka magacaagaan ku dhimanaya magacaagaan ku noolaanaya mowtka kale weynna waa saas si la-eg wuxuu leeyahay anuu magacaaga xusaya ayaan dhimanayaa nafbaxayaa dee inuu magaca ilaahay ku dhintaana ruuxu waa khaatimo wanaagsan man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna ka hadalkiisa ugu dambeeya ay noqoto laa ilaaha ila allah oo sidaa naftu kaga baxdaa dakhala aljanna jannaduu gelaya jannada ayuu gelayaa sidaasaa nebigu calayhi asalaatu wasalaam uu yidhi xadiiskan bismika allaahumma amuutu wa axyaa wa min xadiisi xudayfata bni lyamaan xudayfata bnulyamaan saxaabiga laga soo wariyey waa xudayfata bnulyamaan weeye xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa markaa soo wariyey xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiska 106 marka uu ruuxu seexanayo wuu tasbiixsanaya wuxuu odhanaya subxaana allah ilaahay baa xumaan ka nasahan oo ka dheer 33 goor walxamdu lilaah mahad ilaahay baa la gaara ama mahadi ilaahay bay u sugnaatay jinsiga xamdi oo dhan ilaahay baa la khaas ah ilaahay baa mutaysta ilaahay baa ay u sugnaatay 33 goor buu sidaa odhanaya ma odhanaayo subxaana allah 33 yani 33 kuma dhawaaqayo laakiin 33 goor buu ku celcelinaya 33 goor buu ku celcelinaya subxaana allah subxaana allah subxaana allah ilaa uu 33 goor gaadhsiiyo alxamdu lilahna waa ku celcelinaya ilaa uu 33 goor gaadhsiiyo wallaahu akbar
allah baa weyn yani akbaru min kulli shay wax walba ilaahay waa ka weyn yahay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen akbar marka la fasirayo hal yaha kabiir ha lagu fasiro bimacnaa ilaahay waa weyn yahay ya sidaa ha la yidhahdo laakiin sida fiicani waa in la yahay akbaru min kulli shay wax walba ilaahay waa ka weyn yahay waayo akbar iyo kabiirkee ablaga waxaa xeel dheeraansho badan yani wax walba waa ka wen yahay ilaahay waayo kullu kabiir laysa biakbara min kulli shay shay kastoo weyni wax kasta kama weyna laakiin shay wax kastaba ka weyni kabiirna waa yahay marka kabiir iyo akbar waxaa labada xeel dheeraansho badan akbar marka waa akbaru min kulli shay tafdiil in loo fasiro ayaa markaa fiican marka qadar ahaan iyo sharaf ahaan iyo daata ahaan mid walba ilaahay waa u wen yahay wax walbana waa ka wen yahay sidaana wuxuu odhanayaa 34 ayuu sidaa odhanaya 34 goor ayuu sidaa odhanaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaa uu gaadhsiiyo 34 goor uu gaadhsiiyo isku 100 bay noqonayaan 33 tasbiixood 33 alxamdu lilaah 34 allahu akbar ah waa 100 buura ya waa min xadiisi caliy bni abi aalib xadiisku weeyaan xadiiskanna sabab buu lahaa sababtu lahaa waxay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxa u yimi dad sabyi ah oo la soo qafaashay ayaa markaa u yimi oo jihaadkii lagu soo qabtay markaasaa waxay maqleen in sabyigaasi u yimi nebiga sala allahu alayh wasalam cali ayaa wuxuu ku yidhi faatima cid inoo adeegta nebiga inoo soo weydii nebiga calayhi salaatu wasalaam inantiisii faatima ee ubadkiisa ugu jeclaa waatuu nebigu u guuriyey calayhi salaatu wasalaam caliy bna abi aalib waayu nebiga ilmaadeen ruma ahaayeen ayuu nebigu u guuriyey calayhi salaatu wasalaam faatima waa sayidatu nisaa'i ahlijanna dumarka jannada gelaya waa ta ugu mudan waa sayidatu nisaa'i ahlijanna wax khaadimo u shaqeeya may lahayn cid u khidmaysa oo u shaqaysa may lahayn saas aawadeed shaqada guriga iyadaa qabsan jirtay iyada ayay qabsan jirtay calina waa soo dhaamin jiray oo biyuhu u keeni jiray iyaduna shaqada guriga ayay qaban jirtay farihii baa baxay sidii u shaqaynaysay ayaa waxay tidhi laqad majilat yadaaya min alraxa yaa midxinkiiyo wixii aan markaa shiidayey aan midximinayey baa faruhu i baxeen shaqooyin kaloo gurigoodda ay qabanaysiina waa jirtay cali baa yidhi orodoo u tag nebiga sala allahu alayh wasalam u tagoo sabyigan la keenay bal cid khaadima haynaga siiye soo weydii faatimaa nebigii u tagtay calayhi asalaatu wasalaam waa salaamtay nebigu salaamtii waa ka qaaday dabeedna wuxuu yidhi aabbe maxaa ku keenay waxay tidhi waa xishootoo inaan ku salaamaan u imi hadalkiiba kula dhici weeyey way noqotay cali baa weydiiyey dabeedna waxay tihi waan xishoodoo hadalkii waa kula dhici waaye labadooda is soo raaceen nebigay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam cali baa hadlay wuxuu yidhi anna waxaan ku dhibaatooday biyihii aan soo dhaaminay iyadana shaqadii guriga ayay ku dhibaatootay khaadimna sii sabyigan waxaad naga siisaa cid noo shaqaysa markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam idinma siinayo ahlu sufihii oo waxay cunaan ba'an haysanin nimankii masjidka xaggiisa dambe joogay ee u hoyanayey ee aan hoyga lahayn ee muhaajiriinta ahaa ee waxay cunaanna aan haysanin baan u iibinayaa iyagaan ku masruufaya yaga ayaan ku masruufaya ha yeeshee waxaan idiin sheegayaa wax khaadim idinka wanaagsan baan idiin sheegaya waxaa khaadimka idinka wanaagsane waa maxay habeenkii markaad seexanaysaan inaad 33 goor subxaana allah aad tidhaahdaan 33 goorna alxamdu lilaah aad tidhaahdaan 34 goorna allaahu akbar aad tidhaahdaan fa huwa khayrun lakumaa min khaadim sidaa inaad tidhaahdaan khaadim waa idinka wanaagsan yahy waa idinka khayr badan yahy waa cajiib xadiiska sidaa lagu soo wariyey waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey marka waxay culammadu yidhaahdeen munaasabada ka dhaxaysa maxay tahay khaadim bay doonayeen haddana waxa la yidhi tanbaa khaadim idinka fiican ahlucilmigu waxay yidhaahdeen ruuxu hadduu dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay farabadiyo
awooddiisaa badanays yataqawaa saas aawoodee awood badan buu helayaa marka shaqadu markaa idinma dhibaysaba khayrka kalea ka helaysaan waxaa ka ziyaado ah inaa xataa awood badan ka helaysaan alcallaamatu ibnuqayim wuxuu yidhaahdaa shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu ahaa kaiira adikri mid xus badan buu ahaa aad iyo aad xuskiisu u fara badan yahi marka salaadda subax markuu tukado intuu fadhiistu wuxuu ku celcelin jiray laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ilaa barqa ay noqonayso markuu adkaarta kale la yimaado markaasuu wuxuu yidhi haddaanan sidaas samaynin awooddeedaa tegaysa waa awood beelayaa saas aawadee xuska badanee uu ilaahay xusi jiray wakhtiye yar buu camallo fara badan ku qaban jiray oo waxay yidhaahdaan kutubaha qaarkood wuxuu ku qoray wakhti aad u yar kitaab iska dhan baa la odhanaya wuxuu qoray bayna aduhri waalcasri duhri iyo casar dhexdooda ama wuxuu qoray casar iyo maqhrib inta udhaxaysa imaka kitaabka alwaasitiya caqiidat alwaasitiya intuu leegii waa aragteen iyo wax nusuus ku jira aayaat iyo axaadiis u soo aroorinaya iyo tacbiirka uu cabbirayo masaa'isha khulaasadooda haddana maca daalik waxaa la yidhahdaa wuxuu qoray bayna alcasri waalmaqhrib casar iyo maqhrib dhexdood buu qoray kutubaha qaarkoodna wuxuu qoray duhur iyo casar dhexdood marka awooddaa badan waxaa u sababtay culammadu yidhaahdeen xuska badan ee uu ilaahay xusayo halkan waxaa laga qaadanaya sayidatu nisaa'i ahli janna baan khaadim loo yeelin waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye marka dumarku shaqadii ay ku dadaalaan oo ay xil iska saaraan ayna ka mid tahay dhaqankan wanaagsan inay markaa u shaqeeyaan oo raggooda gurigooda ka shaqeeyaan gurigooda ilaaliyaan fuqahada qaarkood waxay isweydiiyaan gabadha khidma ma saaran tahayoo inay markaa waxaa weeye ninka u shaqayso oo raashinka u bislayso oo dharka u maydho oo guriga u nadiifso oo gogosha u gogosho oo waajib miyaa mise waa tabarruc iyo sunne waa arrin tabarruc iyo sunna aba mise waa arrin waajiba mise masaa'ishaa in la sheego ma jeclideen bacdu alfuqahaa waxay leeyihiin mid ku waajiba ma ahee waa arrin marka akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan weeye oo waa sunnay leeyihin bacdu ahlicilmina waxay leeyihin waa shay waajiba inta daaqadeedii ay kari karto inay kala timaaddo waa mid waajib ku ah ayay markaa yidhaahdeen oo daacada marka ay ninka ateecaysaa kuma koobno keliya yani waxa weye wax firaash ku saabsanoo keliya kuma koobno yani mid ku gaara ma aha bacdu ahlicilmi odhanaya curfigaa loo celinayaana waa jiraa oo haddii curfiga beledkaasi iyo dadkaasi ay yihiin qaar waxa weeye markaa loo yaqaano inay markaa shaqadaasi inay dumarka saaran yihiin waa mid laga rabo haddii markaa curfiga loo yaqaano sida kalena waxa weeye waa mid markaa aan yani saarnayn alcurfu muxakam xagga curfiga ee ahlucilmiga qaarkood u celiyeen xagga curfiga ayay markaa u celiyeen laakiin calaa kulli xaal adilada waxaad ka arkaysaa dumarkii fudalada ahaa ee saxaabiyaadka ahaa shaqooyinkan inay qaban jireen mid odhan jirtay aniga layguma laha oo ima saarnana inay jirin saas aawoodee fuqahada qaarkood warka ay la yimaadeen oo ku saabsan mid saaran ma aha waxa weeye waa iyagu markaa miday yani waxa weeye ra'yigooda ay kula yimaadeen ee mid ay markaa adilada iyo camalkii saxaabada ay ka qaateen ma aha miday camalkii saxaabada ka qaateen ma aha gabadh walina waxaa loo baahan yahy inay ku cibro qaadato sayidatu nisaa'i ahlijanna faatimatu binti rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam yani waxa weeye khaadim ma haysato calina kumay khasbin inay khaadim yeelato miday ku khasabtay ma ahay shaqadeedii iyada ayaa yani markaa qabsanaysa ku dadaalaysa ilaa faraheedii ay baxeen waxay leeyihin majilat yadaaya labada gacmood waa ibaxeen faraha ay baxay oo biyo ay galeen hadda maaragta min kasrat alcamal siday shaqadu u badnayd daraaddeed waxay qabanaysa haddana waxa weye maca daalik mid waxa weeye ay ku sabraysay bay ahayd markay aragtay ninkeedii waxaanu kari karin kuma kellifin uma odhan ilaaba ilaa adigu markaa shaqaale ii keen aabbaheed markay ka codsatayna yani nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu marka uu yidhi dee cid kaleoo idinka awlaysan oo maslaxada caamka ah ayaa markaa arrinkan markaa lagu bixinaya wuxuu u tilmaamay shay khayra inay markaa sameeyaan ayuu markaa waxuu u tilmaamay marka intaa lagu cibro qaato waxaa ku jirta cibraha yani wakhtiyada qaarkood dumarka iyo raggu waxay isku qabsadaan waxaa ka mida guryaha qaarkoodna sabababa inay markaa waxa weeye
dhibi dhexdooda ka dhacdo oo la dhex galo in waxa weeye ay yidhahdaan ilaaba ilaa khaadim ha la yeelo ilaaba ilaa khaadim in loo yeelo hadday suuro gasho oo dee loo sameeyo waa shay axsan oo fiican laakiin haddii taaqadii ninka marka ayna awoodayn aanu kari karin in gabadhii marka waxaweyn ay sabirto ilaa intay faraj helayso ayaa marka waxaweyn yani meesha ku sugan waxyaalaha la odhanayo wakhtiga hurdada la akhrinayo waxaa ka mid ah ducadan baa ka mid ah allaahumma ilaahayow rabba asamaawaati asabci samooyinka toddobadaa kii u rabbiga ahaayow wa rabba alcarshi alcadiim carshiga weyn ka u rabbiga ahaayow rabbanaa wa rabba kulli shay rabbigayow wa rabba kulli shayin shay kastaba kii rabbiga u ahaayow faariqa alxabbi waannawa xabuubka raashinka ah ka kala jeexow ka kala dhambalow waannawa laftimireedka ka kala jeexow yacni alxab waa xubuubkoo waa wixii badar ah yacni hadday tahay hadhuudh iyo hadday tahay ashyaada kale la midka ah yacni waxaa la odhanaya iyaga xubuub baa la odhanaya ama sarreen ama qamandi ama heed ama yacni waxa weeyaan misir kullu daalika waxay noqonayaan xubuub annawaana waa waxyaalaha aan markaa xabuub isagu aan ahayn ee waxa uu ka baxa ay tahay laf oo kale sida laftimireedkaoo kale la yahay annawaa marka labada mid walba marka wax ka soo baxayaan dee way kala dilaacaysaa markaasuu geedku ka soo dhex baxaya marka inintii adkayd ama xabaddii badarka ahaydee adkayd ayaa intay jilicdo oo ilaahay jilciyo ayuu kala jeexayaa markaasuu ka soo saarayaa geedka uu ka soo saaraya marka dee ilaahay baa kala dhambala wa munzila altawraati waalinjiili waalfurqaan kutubtaa kii soo dejiyow kitaabka tawraadeed iyo kitaabka injiil iyo kitaabka furqaan qur'aanka saddexda kitaabba kii soo dejiyow alfurqaan wuxuu ka mid yahay ism min asmaa'i alqur'aan waa magac ka mida magacyada qur'aanka qur'aankana waxaa u soo arooray magacyo badan ayaa u soo arooray acuudu bika waan ku magan galay min shari kulli shayin shay kastaba sharkiisaan kaa magan galay inaad iga magan gelisaan ku weydiisanayaabaa macnuhu u dhacaya anta aakhidun binaasiyatihi shaygaasoo anta aakhidun aad adigu hayso binaasiyatihi fooddiisa aad hayso jumladu sifo waxay ka tahay shay allaahumma ilaahayow anta alawalu waxaad tahay kii horreeyey falaysa qablaka shay hortaa ma ahaan shaynaba wax kaa horreeyey ma jiro wa anta alaakhiru waxaad tahay ka dambaynaya falaysa bacdaka shay adiga dabadaa shay ma ahaan shay kaa dambaynaya ma jiro wa anta aldaahiru waxaad tahay kii korreeyey falaysa fawqaka shay korkaaga shay ma ahaan oo shay kaa sarreeyaa ma jiro shay ma ahaan korkaaga wa anta albaatinu waxaad tahay kii sokeeyey bimacnaa dhowaa falaysa duunaka shay wax kaa sokeeyaa ma jiro bimacnaa wax cilmigaaga iyo ogaalkaaga iyo araggaaga xijaabaya oo shay ka qarinayaa ma jiree shay walba waad og tahay shay walbana waad arkaysaa iqdi canna addayn naga gud ilaahayow daynta naga gud qaanta iyo xuquuqda nalagu leeyahay ilaahu naga gud wa aghninaa min alfaqr ilaahu naga qani yeel oo mid ka hodana naga dhig min alfaqri faqriga oo faqriga naga saar xadiidku waa min xadiisi abi hurayra muslim baana saxiixa ku soo wariyey nebigaana amray calayhi asalaatu wasalaam in sidaa la yidhaha quulii allaahumma rabba asamaawaati asabci saasuu ka bilaabanaya marka waxyaalaha la odhanayo marka la seexanayo ayay ka mid tahay marka wuxuu sheegayaa duca ilaahay la baryaayo oo ilaahayna lagu baryayo magacyadiisa allaahumma waa ism ilaahay yaa allah wuu la macno yahay rabba asamaawaati asabci wa rabba alcarshi alcadiim waa asmaa mutacadida rabba asamaawaati asabci waa ism ilaahay wa rabba alcarshi alcadiim waa magac ilaahay rabbanaa wa rabba kulli shay waa magac ilaahay weeye faariqa alxabbi waannawaa yacni dhammaan ilaahay baa loogu yeedhaya waa min baabi xadfi xarfi nida ay yaa rabba asamaawaati asabci wa yaa rabba alcarshi alcadiim yaa rabbana wa yaa rabba kulli shay yaa faariqa alxabbi waannawaa wa yaa munzila altawraati waalinjiili waalfurqaan dhammaan waa nidaa ilaahay loo yeedhaayo marka waa asmaa ilaahay weeye waxaa laga qaadanayaa rububiyada ilaahay in lagu baryaayo rabbinimadiisa hadday tahay rububiya caama iyo hadday tahay rububiya khaasa
mid walbana ilahay waa ku sifaysan yahay inuu shay walba u rabbi yahay waa ku sifaysan yahay inuu ashyaada qaarkooda khusuusiyo gaara leh si gaara in loo soo gaar yeelo u rabbi yahay in la soo khasisay oo waxa weeye waa tacmiimun bacda takhsiis faaliq alxabbi waannawa waa ism min asmaa illah wa munzila altawraati waalinjiili waalfurqaan lama odhan warabba altawraati waalinjiili waalfurqaan lama odhan waayo kutubtaasi waa munazala hayru makhluuqa waa la soo dejiyey makhluuqa ma aha oo lama abuurin kalaamka ilaahayna waa hayru makhluuq cinda ahli sunnati waljamaca hadalka ilaahay makhluuq ma aha waa sife ilaahay waxaan kaa magan galay shay kasta sharkiisa waxaa loo jeedaa shay kastoo shar leh ashyaadu shar ma wada leh shay kastoo shar leh baan sharkiisa kaa magan galay shaygaasoo anta aakhidun binaasiyatih taqyiid ma aha shay walba ilaahay isagaa haya fooddiisa haya isagaa ku tasarrufaya isagaa mulkiya allaahumma anta alawalu falaysa qablaka shay afarta isime alawal iyo alaakhir aldaahir iyo albaatin ayaa xadiiskani fasiraya ilaah waxaa tahay kii horreeyey oo shay kaa horreeyey ma jirin shay ilaahay la horraynayna ma jirin shay ilaahay mar walba ku ladhnaa ma jirin alawal waa ism min asmaa'i illaah huwa alawal waalaakhir waaldaahir waalbaatin marka qadiim waa ka fiicanta yidhahan culamadu waayo waa ism ilahay isku magacaabay waa binasi alqur'aan qur'aanka iyo sunnada mid walba ku sugan in ilaahay alawal la yidhaahdo laakiin alqadiim in la yidhaahdaa ilaahay lagu magacaabaa qur'aanka kuma iman sunnada saxiixadaana kuma iman amaa xadiiska tirmidigaee sheegaaya alqadiim culammadu waxay dhahen sanadkiisu waa daciif macna ahaanna waa wanaagsan yahay erayga alawal waa ka wanaagsan yahay alqadiim waayo waxaa laga soo qaatay min alawl awl waa maxay noqoshada waa kii horreeyey shay walibana xaggiisa u noqonayo ya'uulu ilayhi kullu shay waxaa tahay ka dambeeye ee bimacnaa dambayn doonee jiraaya shay kaa dambaynaya ma jiro falaysa bacdaka shay waa ka baaqiga ilaahay hadhaya ashyaada qaarkoodoo makhluuqaad ah oo ilaahay baaqi yeelayaa waa jiraan sida jannada iyo naarta iyo arwaaxda iyo carshiga iyo kursiga ahlu majara laakiin iyagu waxay ku baaqi noqdeen in ilaahay baaqi yeelay haddaanu ilaahay baaqi yeeli lahayn may baaqi noqdeen wa anta adaahiru falaysa fawqaka shay waxaa tay ka korreeya duhuurku waa culuwiga iyo korraynta shay kaa korreeyaa ma jiro wa anta albaatinu falaysa duunaka shay waxaa tay ka dhow kaan la xijaabaynoo la qarinayn ka markaa waxa wayaan yani ashyaada qarsoon og umuuraha kuwooda qarsoon waa ilaaha og shay shay ka xijaabaya ama shay shay ka qarinaya ma jiro laa yaxjubhu shayun can shay marka ilaahay inuu korreeyo iyo wax walba inuu og yahay isdiidi maayaan isagoo ilaahay korreeya xagga qadar ahaan iyo sharaf ahaan iyo xagga daata ahaan iyo xagga awood ahaan mid walba ilaahay waa u korreeyaa si walba waa korreeya makhluuqaadkiisana waa ka baxsan yahay haddana maca daalik wax walba waa og yahay wa huwa bikulli shayin caliim iqdi canna addayn ilaahu daynka naga gud addayn culamada qaar waa cammimeenoo waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa xuquuqda aad leedahay iyo xuquuqda khalqigu leeyahayba mid walba waa dayn weeye daynullah iyo dayna khalqih ilahu mid walba naga gud waajibaadka sharciga iyo takaaliifta sharcigii waa duyuun fa daynullahi axaqu an yuqdaa daynka ilaahay baa u xaqnimo badan in la gudo nebiga markii la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam qof markaa waxa weeye lagu lahaa waajib sharci ah oo ka tegey xajkii aan samayn markii nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ara'ayta in kaana calaa abiika daynun faqadaytihi akaana yanfacuh aabbaha haddii dayn lagu yeelan lahaa oo aad ka bixin lahayd bimacnaa dayn khalqi ma anfici lahayd qaala nacam qaala fa daynullahi axaqu an yuqdaa marka xuquuqda ilaahay iyo xuquuqda khalqigaba daynka waa soo gelayaan marna waxaa loo isticmaalaa daynka inkii khalqiga loo isticmaalayo fii bacdi nusuus yukfaru lishahiidi kullu danbin ila addayn halkaasoo kale daynka waxaa looga jeeday kii khalqigaa loo jeeday marka shuraaxda qaar hadda waa cammimeenoo xuquuqdii khalqigii iyo xuquuqdii ilaahayba waa soo geliyeen maadaama maqaamu ducaa ay tahay ducadana in la waasiciyaa ay ku sii fiicantay wa aghnina min alfaqri ilaahu faqriga hani naga yeelo faqriga naga saar marka waa duco markaa fiican weeye marka ducada in lagu ducaysto
ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam u amray marka la seexan. xadiiska 108 alxamdu lilaahi aladii acamana wa saqaana. alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa la gaara aladii kaasoo accamanaa na quudiyey oo waxaannu cunno na siiyey, wa saqaanaa na waraabiyey oo waxaannu cabno na siiyey, wa kafaanaa na kaafiyey, wa aawaanaa na hooyey. ilaahay waa na quudiyey, waa na waraabiyey, waa na kaafiyey oo yacnii wixii dhib ah waa naga kaafiyey, wa aawaanaa waana na hooyey. yani waxaannu ku kaaftoonnuu na siiyey, hoyna waa na siiyey. fakam min man laa kaafiya lahu walaa mu'wi. fara badana midaan lahayn wax kaafiya, midaan wax kaafiya lahayn walaa mu'wiya, cid hoynaysaana ayna jirin. xadiiskani wuxuu aha min xadiisi anas. waxaanu sheegaya anna rasuul allah sala allahu alay slam kaana idaa awaa ilaa firaashihi qaal, nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu firaashkiisa tago oo u dunmo wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii accamanaa wa saqaana wa kafaana wa aawaana fakam min man laa kaafiya lahu walaa mu'wi. asalku walaa mu'wiya weeye, laakiin istaagga la ysku taagayo ayay tahay sukuntii caaridkaah. xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey. marka waa mahadnaqa rabbi loo mahadnaqaayo, nicamkiisa wax ka midana la sheegaayo, rabbina loo mahadnaqayo. xadiiska 109 allaahumma caalima alghaybi waashahaada. allaahumma ilaahayow caalima alghaybi waxa qarsoon kii u cilmiga lahaayow, ilaahay waxba kama qarsoona, wax ka haybi ilaahay ma jiro. laakiin hayb marka la leeyahay waxaa loo jeedaa khalqiga ama khalqiga cid ka mida ayaa waxaasi hayb ka yihiin oo ka qarsoon yihiin. haybna waxaa loo jeedaa bimacna alghaa'ib, waa wixii markaa waxa weeye qarsoonaa ama yacni khalqiga ka maqnaa ama ka qarsoonaa ama qaarkood ka qarsoonaa, kii u cilmiga lahaayo. waashahaadati iyo waxa muuqda kii u cilmiga lahaayow, faatira asamaawaati waalard, ka cirarka abuuree abuurkooda bilaabayow, waalardi iyo dhulka ka abuuree abuurkiisa bilaabayow ee cidnaba aan kaga dayanow. rabba kulli shayin wa maliikah, shay kastaba kii u rabbiga ahaayow, wa maliikahu shay kastaba ka mulkiyow. almaliik iyo almalik waxa weeye waa bimacna ablaq ha kala ahaadaan, laakiin waxa weeye waa isku macne. ashhadu an laa ilaaha ilaa ant, ashhadu waxaan qirayaa oo ictiqaadinayaa oo yaqiininayaa oo caddaynayaa an laa ilaaha ilaa ant, ay annahu sha'niye laa ilaaha ilaa anta mid la caabudaa xaq ma aha ilaa anta adiga mooyaane ilaahayow, adigoo qura ayaa in la caabudaa ay xaq tahay, ciddii kaloo dhan in la caabudaa waa baatil. acuudu bika min shari nafsii, waan ku magan galay adiga, waxaan kaa magan galay min shari nafsii, naftayda sharkeedaan kaa magan galay, wa min shari ashaytaani wa shirkih, shaytaanka sharkiisana waa kaa magan galay, ee sharka shaytaankana iga badbaadi. wa shirkihi, shirkiga shaytaankana waa kaa magan galay, bimacnaa inaan shaytaanka ilaahay ugu shariig yeelo oo aan rabbi la caabudaan kaa magan galay, ama waxaan kaa magan galay inaan shaytaanku shirki ii qurxiyo, shirkigii shaytaanka, bimacnaa maadaama uu isagu markaa xumaanta qurxinayo, xumaantana dadka ugu yeedhaayo, shirki kastoo la sameeya waa shirkigii shaytaanka, ila isagaa u sababe. shaytaanka shirkigiisana waa kaa magan gala, dadkii inuu gaalnimo ku ridaa buu rabaa, waa u qurxinayaa, waa ugu yeedhayaa, yacni waxa weeye shirkigiisaasna waa kaa magan gala. waxaa kaloo loo xarakeeyey waynu soo marray xadiiska wa sharakihi. haddii la yidhaha wa sharakihina waxay noqonaysaa shabakadda shaydaankana waa kaa magan gala. sharak waa shabakadda wax lagu ugaadhsado, xadhkaha shaydaanku wax ku ugaadhsanayo ama shabakadda shaydaanku wax ku ugaadhsanayo ayaan kaa magan gala. laakiin labada dabdi sidana waa loo xarakeeyey, sidana waa loo xarakeeyey, sida saxiixa ah ee fiicani waa sida inoo qoran wa shirkihi. wa an aqtarifa calaa nafsii suu'an, waxaan kaa magan galay inaan kasbado calaa nafsii naftayda aan u kasbo suu'an xumaato ama dembi aan u kasbo ayaan kaa magan galay. aw ajurahu ama aan u jiido ilaa muslimin muslim aan u jiido xumaanta ayaan kaa magan galay. xadiiska min xadiisi cabdullahi bni camr bni caas waxaana soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo khayrkood baa soo wariyey, riwaayaad kalena waa leeyahay. xadiiska horeynu u soo marray. xadiiska waxaa markaa ku jirtay
in la akhrinayo adkaartii sabaaxa iyo masaaga. waxaa kaloo ku jirtay ziyaado markii aynaan sheegin oo riwaayaadka qaarkood ay ku darayaan oo tilmaamaysay in marka waxa weeye marka subaxnimadii la odhanayo uu yidhahdo abubakar sidaa yidhaahdo. abubakar buu nebigu ku yidhi sidan dheh, markaad subaxaysanaysa sidan dheh, markaad galabaysanaysana dheh, markaad seexanaysana dheh. marka xadiisku waa haabit, horeyna wuu soo maray. xadiiska 110 yaqra'u alif laam miim tanziil asajda. marka uu seexanayo ruuxu wuxuu akhrinayaa alif laam miim tanziil asajda. alif laam miim tanziil alkitaab oo marka asajda ah. asajda waa lagu soocaya alif laam miimadii kale waxaa laga soocay yani waxa weeye tanziili asajda. marka suuratu sajda waa suuradda aynu u naqaano. suuraddaa waa akhrin jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu seexanayo. wa tabaaraka aladii biyadihi almulk. suuradda markaa tabaarakna waa akhrin jiray. suuratu lmulki waa akhrin jiray. xadiiskuna waa min xadiisi jaabir bni cabdillaah. wuxuuna sheegayey kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam laa yanaamu kula leylatin xataa yaqra'a yani alif laam miim tanziil asajda. nebigu sala allahu alay wasalam ma seexan jirin habeenkii ilaa uu akhriyo suuradda asajda iyo tabaarak labadaa ilaa uu akhriyo ma seexan jirin ilaa uu akhriyo. xadiiskana waxaa soo wariyey tirmidi iyo nasaa'i baa soo wariyey. sheekh albaanina waa saxiixinaya. marka waxaa laga qaadanaya inay sunno tahay habeenkii in la akhriyo labadaas suuradood in la akhriyaa inay sunno tahay. suuradda weliba tabaarak waxaa la yidhahdaa alwaaqiya. waaqiya maxaa loo yidhi? magacyadeeda alwaaqiya ka mid a. cadaabulqabriga qofka ka ilaalisaa. qofka habeen kasta suuradda tabaarak akhriya cadaabulqabri la kulmi maayo. xadiis baa ku soo arooray oo nebigaa sheegay sala allahu aleyh wasalam ruuxa habeen kasta suuradda tabaarak akhriya suuratulmulki tabaaraka aladii biyadihi almulku suuradda akhriya cadaabulqabri lama kulmayo. nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam in habeenkii akhrin jiray suuradda tabaarak habeen kasta. dabeedna markaasuu nebigu sheegay uu yidhi suurad 30 aayadood ah ayaa ruuxii akhrin jiray waxay ka ilaalisay cadaabulqabriga ayay ka ilaalisay. saas aawadeed in lagu dadaalo habeen kasta la akhriyo ayaa markaa fiican. sheikha weyn ee kitaabka tafsiirka weyn leh alusi la yidhaahdo, kitaabka ruuxulmacaaniga alifay ee tafsiirka weyn, markuu fasirayo suuraddaa wuxuu odhanayaa suuraddan tabaarak ilaa markaan wax kala gartee mumayis noqday laga soo bilaabo ilaa wakhtigaa uu tafsiirka qorayo oo awaakhira cumurihi ah laga soo gaadho hal habeen kama tegin buuri. hadda muu odhan markaan qaan gaadhay laga soo bilaabo. wuxuu idhi markaan mumayis noqdee wax kala gartay laga soo bilaabo ilaa hadda wakhtigaa uu joogay ee kitaabka qorayo laga soo gaadho hal habeen kama tegin buuri. haddaan safar ahay iyo haddaan negahay, haddaan xanuunsanayo iyo haddaan caafimaad qabo midnaba. waxay ku tusinaysaa siday ugu dadaali jireen cibaadada ay ugu dadaali jireen bay tilmaamaysa. xadiiska 111 marka habeenkii la seexanayo waxaa la odhanayaa allaahumma aslamtu nafsii ilayk. allaahumma ilaahayow yaa allahu bay la macnata. aslamtu nafsii waan hoggaamiyey ama waa dhiibay nafsii naftayda ilayka xaggaagaan u hoggaamiyey. naftaydii adigaan kuu hoggaamiyey. wa fawadtu amrii ilayk waa bandhigay amarkayga iyo arrinkayga ilayka adaan kuu bandhigay. wa wajjahtu wajhii ilayk waa kuu jeediyey wejigayga xaggaagaan u jeediyey. wa alja'tu dahrii ilayk wa alja'tu waa tiiriyey dahrii dhabarkaygana ilayka xaggaagaan u tiiriyey. bimacnaa adaan ku cuskanaya. raghbatan wa rahbatan ilayk rajo aan ku rajaynayo daraaddeed ayaan sidaa u yeelaya oo aan markaa dhabarkaygana adiga kugu tiiriyey. wa rahbatan ilayk iyo baqasho aan kaa baqanayo aawadeed. ama arghabu raghbatan wa rahbatan wa arhabu rahbatan ilayk in la yidhaahdo waan ku rajaynayaa rajaan ku rajaynaya baqashona waa kaa baqanayaa ilayka xaggaaga ayaan markaa waxa weeye rajada iyo ay markaa ahaatay. laa malja'a walaa manja minka ila ilayk. laa malja'a meelaan u irkado ama u ciirsado mayhi
walaa manjaa minka meelaan kaaga badbaadana malihi ilaa ilayka inaan xaggaaga u soo cararo oo u soo ciirsado mooyaane. bimacnaa cid kaloo iga kaa badbaadinaysa iyo cid kalaan kaaga eeran karaa midna ma jirto. yaa laa malja'a meelaan u cararo oo u ciirsado ama u irkado iima sugnaan, walaa manjaa meelaan ku badbaado oo minka adiga kaaga badbaado ama kaaga cararaa iima sugna ilaa ilayka inaan xaggaaga u soo cararo mooyaane. aamantu bikitaabika aladii anzalt, aamantu waa rumeeyey bikitaabika kitaabkaagaan rumeeyey alladii kaasoo anzalta aad soo dejisay, wa binebiyika nebigaaga sala allahu alayh wasalam baan rumeeyey alladii kaasoo arsalta aad soo dirtay ay arsaltah. xadiidku waa min xadiisi baraa ibni caazib weeyaan. waxaanu sheegayey idaa akhadta madjacaka fatawada'a wuduu'aka lisalaa, haddaad markaa waxa weeye doonto inaad jiifsato weysayso weyse la mida weysadaad salaadda u weysaysato weyse la mida weysayso. uma dajic dabeedna u jiifso calaa shiqika alayman, dhinacaaga midigeeye midigta xiga u jiifso. uma qul dabeedna dheh allaahumma aslamtu nafsii ilayk. marka waxaa sunno ah marka la seexanayo habeenkii in la soo weysaysto ayaa markaa sunno ah, kadibna midigta loo jiifsado. axaadiista kuma soo aroorin in xagga qiblada loo jeesto. dadka qaarkood waxay yidhaahdaan, weliba waxa markaa sunno ah oo fiican bay yidhaahdaan, marka la seexanayo in qiblada loo jeesto qofka sida xabaasha loo dhigayo waa inuu u jiifsadaa. laakiin sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam taasi kuma soo aroorin, oo lama hayo inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam markaad seexanaysaan xagga qibladana u jeesta, ama lama soo rarin nebigu inuu ficil ahaan u sameeyeyoo inuu xagga qiblada u jeesan jiray markuu habeenkii seexanayo. hadduu samayn lahaana waa la soo rari lahaayoo waa la soo warin lahaa, waayo asxaabta nebigu sala allahu alayh wasalam axwaashiisa iyo ficillada nebigu sameeyo aad iyo aad bay ugu fiirsan jireen, waana soo rari jireenoo dadkay u sheegi jireen si loogu daydo ayay u sheegi jireen. marka waxaa sunnaa in la soo weysaysto, dhinaca midigna loo jiifsado, gees kastaba ha loo jeeday. kadibna yacni dikrigaa la yidhaahdo. baraa ibnu caazib wuxuu yidhi markuu sidaa nebigu ii sheegay ayaan agtiisa anoo joogaan ku celceliyey buuhi si aan u xafido. dabeedna waxaan idhi markaan ku celcelinayey wa birasuulika aladii arsalta, halkaa wa binebiyika ayaan waxaan ku beddelay buuhi wa birasuulika aladii arsalta. nebiguna waa i maqlayaa buuhi sala allahu aleyh wasalam. markaasuu qul wa binebiyika aladii arsalta, yani waxaad tidhaahdaa wa binebiyika aladii arsalta. taa waxay culammadu ka qaataan alfaadaha adkaarta ku soo arooray inaan eray kaloo la macnaa lagu beddelina sidii uu u soo arooray loo yidhaahdo ayaa laga qaataa. waayo alfaadda makhsuuskaee soo aroortay khusuusiyo gaaray leedahay. yaa sidaas aawadeed sida markaa ay naska ugu soo aroortay waa in loo yidhaahdee macno aan lagu sheegin oo wax la macno ah aan la odhan. xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim. waxaanuu ku yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam fain mitta cala alfitra, haddaad sidaa ku dhimato fitradaad ku dhimatay, islaamnimada ayaad ku dhimatay haddaad saa ku dhimato. baabka 29aad adducaau idaa taqallaba leylan, wuxuu ku saabsan yahay ducada la ducaysanayo markuu habeenkii isrogo ou baraarugo inuu markaa ducaysto. xadiiska 112 wuxuu odhanayaa laa ilaaha ila allahu alwaaxidu alqahaar, ilaahu mid la caabudaa xaq ma aha adiga mooyaane, allah mooyaane. laa macbuuda bixaqin ila allah, mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allah, allah mooyaane, allahoo keliya xaq lagu caabudaa. alwaaxidu alqahaar, allahaasoo alwaaxidu kii kelida ahaa ahaaday, alqahaaru kii dirqinaayay cidduu doono inuu dirqiyo ahaaday. rabu asamaawaati waalard, kii cirarka iyo dhulkaba u rabbiga ahaa ahaaday. wamaa baynahumaa, iyo waxaa cirarkiiyo dhulkaba u dhaxeeya kii u rabbiga aha ahaaday. alcasiizu ka khaalibkee gacan sarreeyee shay la midi aanu jirin ahaaday. alghafaaru kii dembidhaafka badnaa ahaaday. xadiisku waa min xadiisi caaisha, oo cidda soo warisay saxaabada ka midii waa caaisha. waxaana xadiiska soo saaray xaakim, ayaa mustadragiisa ku soo wariyey. nasaa'ina fii camal alyowm walleyla ayuu ku soo wariyey.
ibnu xibbaanna wuxuu ku soo wariyey kitaabkiisa saxiixa ah altaqaasiim waalanwaac ayuu ku soo wariyey. xaakim waa saxiixiyey, sheekh albaanina waa saxiixinaya. ha yeeshee a'immadii hore qaarkood baa xoogaa istinkaaray oo imaam abu xaatim iyo abu zurcat araazi ayaa waxay yidhaahdeen inuu taabiciga mawquuf ku yahay baa sawaab ah, oo markaa waxay yidhahdeen waa macluul. sanadku waa saxiix laakiin waa macluul bay markaa yidhahdeen. sixada sanadka waa la isla ogolyahay. calaa kulli xaal waxaa la soo wariyey riwaayo kale taabiciga abnujawsaa inuu odhan jiray wakhtiga uu marka baraarugo inuu sidan odhan jiray. laakiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen isagoo maadaama mawsuula soo arooray oo marfuuca, rafciga iyo wasliguba waa ziyaaday yidhahdeen. taasna waxay ku dhisan tahay qawaacid yani mustalaxay ku dhisan tahay. yani waxa weeye miyaa la iska wada aqbalaya mise tarjiix baa lagu samaynaya. calaa kulli xaal xadiiskan wuxuu sheegayaa hadduu sugnaado dikriga in la odhanayo marka la baraarugaba. baabka 30aad ducaa'u alfazaci fi nnawm, ee argagaxa ama yani qofku hadduu hurdadii saso ducaduu ku ducaysanayo. hurdadii buu ka argagaxay, yani isagoo naxsan buu toosay ama waxa weeye argagax ku dhacay ama sasay, ducadu ku ducaysanayo. waman buliya bilwaxsha, iyo kii lagu imtixaanay inuu markaa cidlo dareemayo oo waxa weeye si markaa waxa weeye xoogaa qalaq iyo cidlo oo kale u dareemayo, warwar yabcan badan iyo yani waxa weye u leeyihi. xadiiska 113 wuxuu odhanayaa acuudu bikalimaati illaahi ataammaati min ghadabihi wa ciqaabihi wa shari cibaadih. acuudu waa magan galay bikalimaati illaahi, kelmadaha ilaahay baan magan galay, allah kelmadihiisaan magan galay. kelmadahaasoo attaammaati dhammaystiran oo ceeb ka madran iyo nuqsaanba. waxaan ka magan galay min ghadabihi, ilaahay cadhadiisaan ka magan galay, wa ciqaabihi ciqaabtiisa, wa shari cibaadih, iyo addoommadiisa sharkoodaan ka magan galay. kelimaadka ilahay baan magan gelaya. wa min hamazaati ashayaatiin, iyo shaytaamada gujooyinkoodaan ka magan galay, yacni waswaaskooda ay waswaasinayaan. wa an yaxduruun, iyo inay shaytaamadu igu soo xaadiraan oo camalladan samaynay ku soo xaadiraan, bimacnaa ay waswaasiyaan ayaan ka magan gelaya. ama ay shar ila haleelaan oo ay dureeyaan ayaan ka magan gelaya. labadu waa soo geliyaan, hadday tahay xagga diin ahaan inay markaa waswaasiyaan oo dhibaan, iyo hadday tahay xagga markaa waxa jir ahaan inay dureeyaan mid walba. xadiisku waa min xadiisi cabdullaahi bni camr bni alcaas. waxaanu markaa sheegayey in rasuulku sala allahu aleyh wasalam inuu bari jiray fazaca ama marka saska ama argagaxa in sidan la yidhaahdo. marka hurdadii laga saso ama laga argagaxo ama iyadoo la naxsan yahay laga tooso in sidan lagu ducaysto. xadiis kalena waxaa ku soo arooray wakhtiga ruuxu uu dareemaayo waxsha iyo wixii la mida, ama waxa weeye sidii wax markaa ama baqaya ama yani werweraya ama cidlo dareemaya, yani waxa weeyaan inuu sidan ku ducaysto baa xadiis kalena ku soo arooray. marka sidaas waa in la yidhaahdaa acuudu bikalimaati illaahi ataammaati min ghadabihi wa ciqaabihi wa shari cibaadih wa min hamazaati ashayaatiini wa an yaxduruun. sidaa waa in la yidhahda. xadiiskana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi baa soo wariyey. tirmidina wuxu uhi waa xasanu hariib. sheekh albaani laftiisuna waa taxsiininaya. marka cabdullahi bni camr bni caas wuxuu ahaan jiray ubadkiisa kuwa yaro roonroon waa beri jiray, kuwa yaryarna intuu markaa looxye ugu qoro ayuu qoorta u suri jiray. laakiin sanadka xadiiska ayaa waxaa ku jira yani waxa weye dacfa ku yari jira. marka riwaayo kala soo aroortay oo tilmaamaysa yani waxa weeyaan in nebigu sidan yidhi. marka labada riwaaye isku quweeyeen. ama ziyaadada sheegaysa inuu markaa looxye qoorta u gelin jiray cabdullahi bni camr bni caas, iyada sanadkeedu waa daciifo, waayo maxamed ibn isxaaq baa soo warinayo cancanuu ku warinayaa, waana mudallis, samaac ma sheegin. saas aawadeed kama sugna cabdullaahi bni camr bni caas inuu looxyo intuu ugu qoro carruurta yaryar qoorta u suri jiray, ma sugne, waa daciif, mid ka sugan maaha. laakiin intan kale ee ku saabsan dikriga in la akhrinayo iyadu waa sugan tahay. laba dariiq baa isxoojinaya, marka waa sugan tahay. marka dikrigaasaa la odhanayaa acuudu bikalimaati illaahi ataammaati min ghadabihi wa ciqaabihi wa shari cibaadih. carruurahana waa in markaa loo laqimaa. cidda marka waxa weyaan carruuraha aan garanayna tacwiidka waxa lagu samaynaya waa lagu tufaya, siduu xasan iyo xuseen ba nebigu ugu tufay oo weli uciidukumaa bikalimaati illaahi ataammaati min kulli shaytaanin wahaamati min kulli caynin laamma, yani saasoo kale ayuu ugu tufayaa.
laakiin in la yidhaahdo waxaa loo xidhayaa baraarug baa loo xidhayaa ama la yidhaahdo aleelaa loo xidhayaa ama waxyaalo la mida waxyaalaha noocaasi waa wax markaa aan sax ahayn mid bannaanna ma aha waxaanay noqonaysaa tala saarad ashyaada la tala saaranayo marka dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay ayaa markaa la magan gelinayaa uciidukumaa bikalimaati illaahi taammaati min kulli shayطaanin wahaammatin min kulli caynin laamma ayaa lagu tufayaa kuwa talqiinta aqbalaya ee loo laqimi karana ee odhan karana waa loo laqimaya marka waxyaalaha laakiin loo xidhayo waa in aad iyo aad laysaga jiraa oo layska ilaaliya baabka 11aad maa yafcalu man ra'a ru'ya aw ilxulum muxuu samaynayaa man ra'a ru'ya kii arka riyada aw ilxuluma ama markaa arka riyo arkaa muxuu samaynaya 14 yanfusu can yasaarihi xaggiisa bidixuu ka tufayaa 3 goor yacnii riyadii waxay u qaybsantaa riyo wanaagsan iyo riyo xun riyada markaa laga tufayo xaggan ee uu sheikhu u jeedaa waa riyo markaa waxa weeye u dhibsanayo o karaahiyaysanayo qofku uu isleeyahay waa riyo xun laakiin riyada wanaagsan ma aha waxa weeye in markaa tan ay ku saabsan tahay waxay ku saabsan tahay riyadii xumayd bay ku saabsan tahay marka riyo xun hadduu arko ama riyo argagax leh hadduu arko wuxuu samaynayaa yanfusu can yasaarihi xaggiisa bidix buu markaa ka tufayaa yacnii neef wax u badan in yar oo candhuufi ha weheliso laakiin waa inay neef u badnaataa 3 goor ayuu markaa waxa weye ku tufaya yastaciidu billaahi min ashaytaan wuxuu magan gelayaa ilaahay oo sharka shaytaanku ka magan gelayaa wa min shari maa ra'aa iyo waxa uu arkay sharkooda ayuu ka magan gelayaa 3 maraatin 3 goor oo inuu acuudu billahi min ashaytaan alrajiim yidhaahdaa 3 goor laa yuxadisu biha axadan cid ugama warramayo riyadaas oo cid uma sheegayo riyadu hadday riyo xun tahay cid uga warramayaa ma jirto yataxawalu can janbihi aladii kaana calayh waa iska rogayaa dhinaciisuu u jiifay oo dhinaca kale isu rogayaa isagoo ka tafaa'ulaya in ilaahay arrinkaa si kale oo wanaagsan ugu beddelo 15 yaquumu yusallii in araada dalik waa kacayaa yusallii xaaluu tukanayo yacnii doonaayo inuu tukado in araada daalika hadduu sidaa doono inta hore waa isku xadiis keli ah saas aawadeed baan arqaam kala duwan aan loogu yeelin waa macno xadiis keliya koobsanayey riwaayaadkiisa kala duwan xadiiskuna waa min xadiisi abu qataadata ibnu ribciy oo wuxuu idhi nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi alru'ya min allah waalxulmu min ashaytaan riyadu xagga ilaahay bay ka ahaatay xulumkuna waataan fiicnayne shaytaan xaggii bay ka ahaatay hadduu haddaba markii midkiin faidaa xaluma axadukum xuluman yakrahu falyanfus can yasaarih hadduu ruuxu arko riyo uu karaahiyaysanayo xagga bidixa ka tufa 3 goor waliyatacawad billaahi min shariha ilaahayna ha ka magan galo sharkeeda oo ha yidhaahdo acuudu billaahi min shariha min shari ru'ya min shari haadihi aru'ya riyadan sharkeedaan ilaahay ka magan gala fa innaha laa taduruhu ma dhibayso muslim baa saxiixa ku soo wariyey riwaayo kaloo isla xadiiskaasi leeyahay waxay sheegaysaa waliyataxawal can janbihi aladii kaana calayh ha iska rogo dhinaciisu u jiifay isla muslim baa soo wariyey riwaayo kaloo isla xadiiskaasi leeyahay waxay sheegaysaa muslim soo wariyey walaa yuxadis biha axadan cidnaba yaanu u sheegin marka intaasoo dhan waa isku xadiis keli ah muslim baanu ka sugan yahay wuxuu samaynayaa 4 arrin ayaa xadiiskaa hore sheegaya riyo uu karaahaysanaya hadduu arko xagga bidixa u tufa 3 goor shaytaanka sharkiisa ilaahay ha ka magan galo sharka riyadana ilaahay ha ka magan galo 3 goor buu taana ku celinayaa cidna yaanu u sheegin riyadaa xun ee argagaxa leh in laga warramo ma aha riyada xun waa in la qariyaa waa in laga aamusaa arrinka afraad ee uu samaynaya waxay tahay dhinacii buu iska rogayaa xagga kale isu rogaya xaggu u jiifay mooye xagga kale u seexanaya yaquumu yusallii in araada dalik waa xadiis kale oo min xadiisi abi hurayra weeye oo isagana muslim baa saxiixa ku soo wariyey laakiin saxaabiga soo wariyay abu hurayra fain ra'aa axadukum maa yakrahu falyaqum falyusalli walaa yuxadis biha annaas wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam hadduu midkiin arko wuxuu karaahiyaysanayo falyaqum ha kaco falyusalli ha tukado walaa yuxadis biha annaas dadka yaanu u sheegin marka xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi abi hurayra riyada lafteeda haddii xataa ay wanaagsan tahay oo wuxuu ku qoonsaday aynay jirin cid walba ruuxu inuu u sheega maaha
waa inuu u sheegaa ruux naasix ah sida axaadiista qaar ku soo aroorto nasteex isaga u ah waayo riyadu waxay aqbashaa ta'wiillo kala duwan ama tacaabiir kala duwan baa lagu cabbiri karaa yacni waxa weeye sidii lagu cabbiraynay u dhacaysaa hadday markaa weji leedahay sidaas weji ay ku waafaqaysa hadday jirto sida markaa lagu cabbiray u dhacayso marka qof aan naasix ku ahayn haddaad u sheegto ou tacbiirkii si aan fiicnayn ku cabbiro waxaa dhici karta sidii inay kuugu dhacdo saas aawoodee xadiis waxaa ku soo arooray yacni ruux markaa waxa weeye ama naasix ku ah ama caalima mooye ruux kale ha u sheegin riyada naxwa haada marka waxa weeye naasix waa inuu yahay ama waa inuu xabiib yahay qof ay isjeceshihiin ama qof nasteex ku ah yacni marka ama qof caalim ah waa inuu noqdaa ciddaad u sheegaysaa haddii kale waa inaad cid walba u sheegin cid walba aanad u sheegin ta kale haddii riyadii wanaag badan koobsanayso rubama inay xasad iyo wax la mid inay ka dhashaa dhici karto nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam markuu sakiirka ahaa ee sabiga ahaa riyaduu ku riyooday muxuu ku yidhi aabbihii laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka kayda haddama aragtaa walaalaha ha uga qisoon riyada ah oo dabeed ay ku dhagraan dhagar yani si aan taasi u dhicin ha u sheegin waxaa dhici karta ruuxu inuu ku riyoodo yacni waxa weeye wax wanaagsan oo dee markaa waxa weye weyn marka cidda uu sheegayaa hadday tahay cid dee xaasidaysa yacni waxaaba dhici karta